السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن أخيارتا إذا الكين بقى ملول بعض نجدا ونيسان كنا سودو وذا شاعية تي في وإذا كجاي معنا يا مجال كولومبوس أوهايو دلك أمريكان كا برنامج كم مرتدا يوم مانتا وحا مرتي إنه هو إسماعيل محمد أو lawyer magaaladan ka howlgala isla markaana ka qayb qaatay doorasho magaaladan ka dhacday oo maanta la shaaciyay in uu ku guuleystay doorashadaasi waxa Ismaaciil uu u tartamayay districtiga saddexaad ee gobolkan Ohio Ismaaciil ku soo dhawo Shaaciye TV aad baan ka mahadcelinay walaalkii Shaaciye aad baa u dhawahay marka hore aad baan ugu faraxsanahay Ismaaciil in aad fursadan isiiso oo aan noqdo qofkii ugu horeeyay ee ku wareysta tan iyo markii aad ku guuleysatay doorashada Ismaaciil maanta dareenkaaga ka war ما شاء الله مر لبادي مر اتحاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوماليدا جالية درير أوهايو سخاصة ما أسلامية ولكن شاعينا أدبان كاي مهد علينا يا رنتي سيدا كامبين كان قرب دير نوصو سيسي فرحت بيني تاي رنتي قفكي قهري وريسين عديقة تاي رنتي فرحت دي لما سوكو بكرو ياد بان وفرح سنة waliba qof kasta oo Soomaaliya oo runtii not only ku ahaa degan qof kasta oo Soomaaliya dalka adduunyada iyo Soomaaliya meel kasta degan farxad bay u tahay dad Soomaaliya wax noqday oo dadkoodii u adeegaya aad weyn Ismaaciil dadka Ohio way ku yaqaanaan inaad Ismaaciil tahay oo lawyer tahay laakiin waxa laga yaabaa si kale inaysan ku garanaynin Ismaaciil waa kuma ما شاء الله إسماعيل رنتي ساتر وارون بدن أو رير كلمز فعم بيقانان لكن رنتي هذا سخاصة وسي حضلو رنتي وحن أحي قف دنيا رأى هذين دائر ما إيه هو سوينا هذا لكن الحمد لله هذا كان دائر كسوقلي رنتي وحكو برتي لوير هدير أفرتي سنة ده قدام بيسنة بالشدة وأديجي وحفي سفرنا لوير نماء ورنتي حالة بدن كوميونتي ولا شقين شري وحالة هشيل بابور كا ترافيك تيكت كا حالة immigration كا سوقليتان كا حالة guryaha iyo runtii waxyaalayaal badan oo sababta ay ku tahay kaligeedan ka ah lawyer Soomaaliya baahiyooyin badan baa jiray runtii oo aniga area-deeda ahayn laakiin dadka aan ka caawin jiray markaas bay dadku ugu yaqaaneen runtii qofna aan ahay runtii aad u dadaala inaan markasta Soomaalida runtii wax ku soo siyaadiyo alxamdulillah farxad bayna noo tahay maanta inaan guushaan aan helnay madal aroos iyo maamuus casri ah hadaad maskaxda ku hayso maqaayada Mr. Hamus Grill mar-uun gaar oo day waxaan joognaa maqaayada Hamus Grill oo ku taala Dublin cunto macaan service macaan wanaagsan soo dhaweyn wanaagsan hilbo la foornaynayo madaxiyo mijo nooc walba aad ma san tahay Ismaaciil maxaa kugu dhiirigeliyay in aad kursigan aad u cararto runtii waxa ay u dheerigeliyay waxyaalayaal badan runtii koow horta qof bulshada ku dhex jira baan ahay oo hadeer ilaa 10 sano ugu dambeysay ku dhex jiray bulshada marna aan jaamacada ku jiray oo barnaamijyo badan kala shaqeyn jiray bulshada marka dambana aan lawyer noqday xafiisi furnaa oo xaalado badan bulshada runtii baahidooda iyo duruufaha dareemi kara dhalinyarada dadka waaweyn ganacsatayaasha ganacsi baan leeyahay runtii meelo badan baan lugaha kula jiraa taas runtii aad bay caawisay inaan qiimeeyo miisaamo duruufaha bulshada oo mar horena tartan aan soo galay runtii aan dadaalnay qofkii ugu horeeyay orda aan noqday aan soo dhawaanay alxamdulillah runtii ay ku abuurtay dadaal iyo hammi dhalinyarada degan Columbus Ohio marka duruufaha jira runtii baahidaas ba ay u kalaftay runtii marka labaad ugu dhawaaqo kulay dadka ku codeeyay oo codka ku siiyay sabab ay codka ku siiyeen maxaad is leedahay dadkaasi sabab hebel ay codkan ku siiyeen صح runtii sabab badan bay dadka igu siiyeen waxay la tahay qayb badan oo qayb yaqaana ani shakhsi ahaan personally oo leeyahay Ismaaciil waa isnaqaana si shakhsi ahaan saaxiibanahay kuwaas bay igu siiyeen qaybna runtii waa dad client iyo aniga oo shaqo soo qabtay oo runtii boqolaal client way yimaadeen noo codeeyeen oo yiri Ismaaciil oo shaqo wanaagaas bay soo qabatay aan kugu codeynayaa taana farxad bay nagu dhalisay qayb kalena waxa runtii qaar bulshada waxyaalayaasha bulshada u qabanay community ka ogaaday ha ahaato Masjid Al-Rahma سعودين runtii masaajidka ugu horeeyay oo laga aadimo magaalada Columbus Ohio runtii inaan qayb weyn ka qaatay xafiiskaygu iyo duruufo badan runtii bulshadan waxyaalo badan aan soo qabanay 4 sano ugu dambeysay aan xafiiska ay furnaa waxa uu qabanay dadka xasuustaan marka way dareemi karnaa inay dhaxeen haduu xildhibaan Ismaaciil hadana sii noqdo runtii waxyaalayaasha uu sii balaarin karaa okay maxaa is leedahay way ku sahashay inaad ku guuleysato doorashadan
صح runtii waxyaalayaal badan horta kow horta ilaahay subxaanahu watacaala baa runtii mahadcelinta ugu weyn iska leh ilaahay la'aantiis waxbana ma suurtagelin lahayn ilaahay ka sokowna runtii bulshada reer Columbus dhanba waliba si khaasatan campaign teamkayga runtii oo runtii campaign team oo rag badan oo khiyaara runtii oo hiil iyo hoobna garab istaagsanaa oo runtii shaqooyinkooda iyo ka fariistay sida ay garabka noo siiyaan campaignkan ayagoo ogsanaa inaan runtii cod yar aan ku guuleysan doono marka ayagana runtii mahadcelin iyo sharaf bay naga mudan yihiin iyo Soomaalida reer Columbus dhanba intii noo codeeyay intii naga codeeyay xitaa runtii waa mahadsan yihiin ugu dhiirigelin bay nagu abuurtay inaan shaqada sii wadno ayagana aan soo jeedano aad u mahadsan tahay qodobo dhowr ah ayaa waxaa ku hal ku dhig oo aad ololaha aad ku gashay qodobadaasi maxaa is leedahay waad qaban doontaa waxyaalayaasha ugu badan runtii because markaan bulshada ku dhex jirnay guryaha garaacaynay runtii wax badan baa kala kulminay dadkaan la kulminay voterska qaar badan way noo sheeganayeen duruufaha baa Ismaaciilona haysta xaaladahan baana haysta waxyaalayaashan maxaa ka qaban kartaa marka runtii xaaladaha ugu waaweyn haddaan taabto qaybo ka mid ah ka warta ganacsatayaasha runtii waa halbowlaha bulshadeena reer Columbus Ohio anigu hadda business owner baan ahay laba ganacsi ay furan mid oo chiropractor ah dugdug ah iyo mid lawyernimo ah runtii bulshada reer Columbusna waxaan ahay runtii oo entrepreneurs oo wax abuur ku fiican marka bulshada horta in taakuleen loo sameeyo haduu xildhibaannimadan wax yaraashu sameyn karo wax waa inuu u adeego iyaga oo runtii ku dagaalamo inuu dhaqaale u soo dhiciyo deegaankiisa oo soo la xiriir city councilka iyo countyga iyo dhaqaalaha meelaha yaalaan inuu lacag loo qoondeeyo ganacsiyaashana duruufaha haysta so ganacsigu runtii waa halbowlihii kow but also duruufaha bulshada dhalinyarada ah runtii violence gang violence iyo drug abuse iyo xaaladahaas dhalinyaradena duruufaha haysta dhalinyarada programyo in loo qabto la garab istaago ayagana waa muhiim guryaha dadka degan duruufaha ka haysta runtii waa dareemi kartiin oo runtii hadda nolosha waliba qaali bay sii noqotay runtii gas priceska iyo groceryga duruufihii dalka haystay waa dareemi kartaa waxaas oo dhan marka xildhibaanku wuxuu runtii mas'uuliyad ka saaran xogna ka saaran dadkaas u dagaalamo u hadlo asagoo budgetka gobolka Ohio ku dagaalamayo inuu qayb ka mid ah deegaankiisa keeno marka waxaas dhan runtii way sababeen in uu dagaalano okay Muniro Abdullahi ayaa guusha kugu wehelisa haddii adiga iyo Muniro aad iskaashataan maxaad is leedahay waad ka qaban kartaan arrimaha caafimaadka daykeerada home health careada ganacsiga iyo waliba waxbarashada gobolkan oo aan ognahay in lagu saleeyo zip code صح runtii waa aad iyo aad farxad bay tahay walaashay Munira ayadana inay guuleystay runtii laba guul oo waliba laba deegaan isku dhagan district 9 district 3 oo isku dhagan yihiin north ka dhanbay cover gareeyaan si u badan tahay marka waliba jaaliyada reer Columbus Ohio boqolkiiba 80 oo north ka dhagan deegaankeena ku jiraan aniga Munira marka farxad bay noo tahay horta kaas koow horta runtii inaan labadeena helnay laba xildhibaan runtii awood badan waa aad iyo aad oo golaha u tartamaya saa la socotiin 99 xildhibaan baa fariista aqalka fariisan doona insha Allah laba xildhibaan marka runtii mas'uuliyad awood badan bay ku leeyihiin inay kula dagaalamaan in budget dhaqaale laga siiyo deegaanadeena marka farxad bay noo tahay waxaan rajaynaynaa runtii Munira waa ismaqalnay mar badan wayna ii hambaliyay maanta soo wacday sababta ay ku tahay isku waqti doorashadii dhacday laakiin natiijadana xoogay dib uga dhacday marka iyadana insha Allah goolkeena wax wayna soo wada shaqeynayno si gacmo furan bulshadana u adeegno bisha November ayaa soo socota waxaana gali doontaan doorasho iyo olole kale ma doorashada sida ayay ku dhamaatay oo sidaan ayaad xildhibaano dhaarta u dhiman ku tihiin mise shaqo kale ayaa harsan aniga iyo bulshada Soomaalida ku dhageysana hadaad noo faahfaahiso صح runtii shaqo badan baan oo dhiman culus waliba runtii dadka Soomaalida runtii waa in wacyigelinta u sameeyno way fiican tahay kulanka inaan sameeyno inaan u sheegno doorashadii wareeg koowaad ka soo baxnay alxamdulillah oo farxad nagu runtii oo xisbiga Democratic Party-gana aan ka soo baxnay laakiin doorashadii labaad waxa tartami doona xisbigeena Dimuqraadiga iyo xisbiga Jamhuuriga Republicaanka waa tartami doona marka wali waan u baahanahay garab runtii dhaqaale u baahanahay ducada dadka u baahanahay in dadka soo baxaan mar labaadna waarnay noo codeeyaan oo November 8 waa insha Allah doorashada markay dhici doonto runtii boosas badanna way jiraan runtii Soomaalida aan u baahanay inay codeeyaan dad badan tartamaya ayagana waan faahfaahin doonaa insha Allah okay haddii aan sii daba galo doorashada dhici doonta November tusaale ahaan dad baa hadda codeeyay August ilaa July soo codeynaya oo idin codeeyay isla dadkaas mar kale midin codeyn karaan mar labaad inuu codeyn karaan qof kasta oo runtii oo codeyn kara oo registered ka uu codeyn karaa khasama qofkii inuu codeeyay laakiin dadkii codeeyay iyo kuwii codeyninba fursad bay u haystaan inay codeeyaan waqtigaas qof kasta uu furan yahay
ma jiraa qof hadda la og yahay oo Republicaanka ka socda oo kula tartami doona صح يس ها aniga deegaankayga waa run qof Republican baa ku jira nin la dhaho Josiah ba faalgareeyay oo ku orday deegaankayga Munira laakiin alxamdulillah qof ayada ka soo horjeeda ma jiro qof Republican faalgareeyay ma jiro because ayagoo og labadan deegaanba inay deegaan dimuqraadiga awood ku leeyahay runtii uu qof dimuqraadi laba goor ka soo baxayo runtii laakiin qaar baa jira iska faalgareeyay booskaas buuxiya aad u weyn doorasho iyo ololo markii la galayo caqabado kala duwan ayaa la kulmaa ma jiraan caqabado aad la kulantay inta doorashada ay socotay runtii campaign kasta iyo ololo kasta caqabadooyin iska jiraan runtii mid haddii ay ahaato dhaqaale mid haddii ay ahaato bulsho runtii anaga alxamdulillah campaignkeena runtii dadaal aad u cusub muujinay way jireen caqabadooyin runtii oo tafaraaruq runtii oo community-geena dhexdeena ugu jiray runtii haddana waxyaalaha ka shaqeyn doona waa insha Allah aan mar hore shaaciyay inaan dadka la isku keeno oo dadka khilaafkii wixii taagnaa iyo la ogaado duruufihii wixii keenay dadkana isku soo dhaweynay insha Allah sababta ay ku tahay dad yar baan nahay deegaan yar baan nahay Soomaaliduna minority ka nahay meeshan inaan gacmahaas qabsano u baahan nahay especially general election marka galayno annaga bas ma ahay laakiin oo boosaska kala duwan oo loo tartami doono kulli in loo codeeyo marka anagoo midaysan baa codeyn doonaa waxaan ka shaqeynaa waxa isku soo dhaweyn bulshada insha Allah Ismaaciil waa mahadsan tahay waxa dadka ay ku wareereen dib u dhac ku yimid in la shaaciyo xaafadii aad u tartamaysay adig iyo Kayli go'aankii ka soo baxay maxaa keenay in dib u dhaco صح runtii waa su'aal fiican dad badan nala soo xiriirayaan Mareykan iyo Soomaaliya iyo Minnesota iyo meelo badan ay rabeen in ogaadaan goormeen natiijada soo baxaysa runtii waa sharci u yaala waa gobolka Ohio hadii mar tiro koob u dhaco tiradana aad u yar tahay anaga hadda 37 cod ka sareynay qofkii aan tartameynay waa tiro aad u yar runtii codadna way maqnaayeen oo fiican marka sababtaas bay kuma dhawaaq karno waa inaan siino 2 isbuuc weli waxa ka badan maalmooyin ka badan bay qaadatay waa wax iska sharci ayaga u yaala in time siiyo codadkii soo dhacay by mail codad badan baa jira mail ku soo dhacay kuwaas in la helo oo tirkoob lagu sameeyo oo waqti la siiyo marka sababtaas bas 2 isbuuc iyo maalmooyin waliba uu ahaa waa cod yar buu iska ahaa oo dhaqso lagu tirin karo laakiin sharciga qabanaya inay sugaan especially waliba dadka oo mail ku codeynaya oo qaar jira dalka ka baxsan overseas soo diray mail dadka qaar baa jira veterans ko kale lacala militariga ayaga waa khasab in waqti loo badiyo xoogaa because dalal kale ay joogaan adduunyada marka mailkaas oo time iska qaadan karo dib isaga dhici kara daraadeed bay time u siiyaan xoogaa time xogaa dheer bay siiyaan sida loo hubsado in la wada helay natiijadii dhanba aad weyn Ismaaciil markii labaad ayaa tartantay waxa laga yaabaa in aad annaga iyo dad badan nagaga aqoon badan tahay boosas kale oo bannaan oo Soomaalida u tartami karaan hal in laba boosas aad xasuusato dhihi karto meesha saa bannaan ee loo tartamo runtii boosas badan baa jira loo tartami karo waliba si khaasatan city council ko kale lacala waa yani guddiga magaalada waaye 7 qof fadhiya guddiga runtii Soomaalida bulshada aad bay u fahansan yihiin laba boosna lagu dari doono sanad soo socda runtii marka waxyaalayaasha aan bulshada la wadaagin horta kaas waa koow haddana labo boos badan way jiraan xildhibaano loo tartami karo waxaa jira also school board oo tartan ayagana gala oo guddiga waxbarashada waxaa jira area commissions oo ayagana ka hooseeya siriga oo deegaano magaalada kamid ayagana loo ordi karo trustee baa jira township ayagana Mifflin township iyo Clinton township oo kala mid marka boosaskaas oo dhan runtii waa boos mataqaana Soomaalida aan ka muuqan karno booskaasna runtii horumar iyo dhaqaale meel unbu bulshada faa'iido uga keeni karaa sidee marka dhalinyartu ay uga faa'iideysan karaan boosaskaas bannaan runtii way u tartami karaan waliba qofku markuu tartamayo qofku waligeedba waxa fiican qofku isku daygaas waa muhiim qofka khasab maaha marka ugu horeysan uu guuleysto runtii guusha dhinaca Ilaahay ka timaadaa laakiin tartanka qofku uu galayo runtii waxay qofka marka hore horta asaga asbaranaya qofka wuxuu soo arkaya asagu maxaa ku fiican tahay maxaa ku xun tahay dad baa jira markay tartamaan runtii oo dib isku baaro oo dhaha war anigu maybe siyaasad booskayga ma aha oo isaga baxa waxyaaba ma aha way dhacdaa runtii laakiin qofka haduu tartamo ودروفه iyo xaalada la kulmo macquul qofka in dhiirigelin u sii noqoto oo hor waa ku fiicanay waxaan yarkaba ay khaldamay dib baan soo dayayaa marka runtii waxay leedahay qofkan wax badan buu baranaya isaga shakhsi ahaan barooso bulshadii baa wacyigelin helaysa bulshadii ana markaan tartaminay 2018 kii runtii bulsho oo waxaan ahayn aad u kala daadsan ogeyn baxta codeynta qaar badan meel laga codeynay ma garanayn yani laakiin wacyigelinta aan sameynay farxad bayna u ahayd badan baa register gareynay ilaa 700 qof aa register gareynay diiwaan gareynay runtii meel ka dhac bay noqotay aad u fiican wanaagsan horumarna sii dhalisay aad weyn ugu dambeyntii maxaa kuugu yaabka badnaa inta aad ku jirtay ololaha doorashada
runtii waxa ugu yaabka badnaa runtii wuxuu ahaa Soomaalidu si isku jecel yihiin walaalo u yihiin inta qof uu noo yimaaday runtii waliba oo qof maama indhool ahayd baan noo timaado noocdaysi mar badan kulan badan waa ka shaaciyay oo tir runtii ma arki kara aniga meel aan u codeyn karo laakiin ninka Soomaaliga muslimka baar baan u codeeyo taa runtii dhiirigelin bay nagu ahayd dad badan oo waayeelo oo wheelchair lagu waday runtii way noo yimaadeen noo codeeyeen ayagoo waliba duruufahaas ku jiray marka runtii Soomaalidu dad aad iyo isku jecel walaalo awaaye ma jirtay qiso oo aad la kulantay qof qalin geli raba صح qof adeeg qalin gel rabay buu ahaa qalin buu soo maray midna u dhibnaa wuxuu yiri inta yarta chance ka haystaa buu yiri inaan ka faa'iideysan raba ku codeeyo because waqtiga wax yar ka dhimaa doorashada codka ku reebo marka waxaas oo dhan waa dhiirigelin fiican ugu dambeyntii baaqaaga ku aadan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Ohio muxuu noqonayaa aad iyo aad baan marka hore ugu mahadcelinayaa walaalkeen Shaaciye runtii ugu mahadcelinayaa jaaliyada reer Columbus Ohio dhanba runtii farxad bay noo tahay aniga Muniira labadeena barto inaan soo baxnay alxamdulillah kayga xoogaa yar tirakoob daraadeed inuu dib u dhacay runtii fursad qaali baan haysanaa hadeer inaan runtii bulshada isku keeno gacmaha la isqabsado aan ka faa'iideysano runtii guushaan fiican iyo waxyaalaha badan aan qaban doono aniga Muniira insha Allah labada sano soo socda marka waxaan bulshada walaalkeen wadaago campaign-kii wali waa socdaa insha Allah ilaa November 8-keeda waxa dhici doona general election-kii haddana waxa dhacay waa primary-gii waa guushii koobaad aan ka soo baxnay xisbiga doorashada labaad insha Allah waxay dhici doontaa November 8th taasna garab baan idinkaga baahannahay runtii ololahiina uu sii socon doonaa marka dhaqaalihiina iyo garabkiina iyo codkiina u baahnaan doonaa dad badan baana jira ordaya oo runtii u tartamay boosas muhiim ah anagu aan ka maarmin inaan helna rabnaa insha Allah ugu muhiimsan yahay Nan Whaley waxay u tartamaysaa governor state of Ohio ayada waa muhiim qof runtii soo wacday waliba ii congratulate gareysay iyo hambalyeysay ayadana runtii waxa u baahnaa qof kasta oo Soomaali oo codeyn doona general election-ka Nan Whaley inuu codeeyo governor waxaa jira Tim Ryan oo asagana u tartamay US Senate waa aqalka sare senatorka asagana waa ismaqalnay uu noo mahadceliyay iyo boosas kala duwan oo statewide Secretary of State-ka Attorney General-ka Treasury Secretary-ga boosaskaas oo dhan waa boosas statewide-ka runtii saameyn weyn ku leh haddii ay soo baxaan listigaas dimuqraadi runtii aniga iyo Muniira waxaan qaban karno way laba jeer bisi adkaanaysaa runtii wax guulo badan waa gaari karnaa haddana haysano garab gudoomiyaha gobolka Ohio iyo boosaskan kala duwan sababta ay ku tahay hadeer intaas oo dhan waxa ku fadhiya xisbiga Republicaanka marka taas bulshada la wadaagaya aad iyo aad mar labaad mar saddexdan kaga mahadcelinaya waad ku mahadsan tahay Ismaaciil sida aad nooga ajiibtay wareysigan ugu horeeyay ee aadna siisay waxaan kaaga mahadcelinaynaa mar kale iyo mar saddexaad sida quruxda badan ee bulshada information-kaasi aad ula wadaagtay waxaad nagala socoteen Shaaciye TV oo idinkaga imaanayay magaalada Columbus Ohio intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bishaaro dadweyne oo maamuuska reerkii iyo marti sharafta meel cunto macaan baan u hayaaye mudanayaal iyo marwooyin bilkhayr dhaha oo Mr. Hamuus Grill baan idiin sidaaye madal aroos iyo maamuus casri ah haddaad maskaxda ku hayso maqaayadda Mr. Hamuus Grill mar uun gaar oo waxaanu joognaa maqaayadda Hamuus Grill oo ku taala Dublin cunto macaan service macaan wanaagsan soo dhaweyn wanaagsan hilbo la foornaynayo madaxiyo mijo nooc walba Mr. Hamuus Grill waxay ku taalaa magaalada Columbus gaar ahaan wadada Bethel Road ama GPS-ta jam ku siiso oo degdeg u gaar adreeskana waa 145 Eber Bethel Road Columbus Ohio 4322 Eber waa sida shaashada kaaga muuqatee ama kala xiriir 614 273 444 Mr. Hamuus Grill